Mareykanka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib u bilaabo shixnadaha bambaanooyinka ee loo dirayo Israa'iil horaantii sanadkan kadib markii ay hakiyeen dhoofintoodii kadib weerarkii bahalnimada ahaa ee lagu qaaday magaalada koonfureed ee Gaza. Mas'uuliyiinta ayaa u sheegay ururo badan oo warbaahineed horaantii bishii May madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu hakiyay hal shixnad oo bambaanooyin ah kadib markii Israa'iil ay amartay in Rafah laga daadgureeyo 6dii Maajo. Militariga Israa'iilna ay bilaabeen howlgallo lala beegsado oo dhulka ah maalin kadib tan iyo markaasi hay'adaha qaramada midoobay waxa ay qiyaaseen in ilaa iyo 1 milyan oo Falastiin ah kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay horay oo dhowr jeer ugu barakaceen aagaga kale ee Gaza laga qabsaday in ay ka baxaan Rafah. Militariga Israa'iil ayaa u sheegay dadka reer Gaza inay ka barakacaan koonfurta magaalada isla markaana u guuraan marinka Gaza iyadoo halkaasi ay howlgallo ka socdaan. Waraaqado ay diyaariyeen diyaarado aan dadka loo sheegin in qof kasta uu ku sugan yahay magaalada Gaza uu halka ka baxo waxaana lagu tilmaamay aaga dagaalka khataraha iyada oo la sii marayo wadooyinka nabdoon oo loogu talagalay inay isticmaalaan dadka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay aad ugu walaacsan tahay amarada daadgureynta ee la siiyay dadka. Waa markii labaad uu dagaalku bilowday oo dadka laga dalbanayo inay ka baxaan goobahoodii ay ku noolaayeen. Labadii toddobaad ee la soo dhaafay ciidamada Israa'iil waxay dib u bilaabeen dhowr deegaan oo ay ciidamadu rumaysan yihiin in Xamaas iyo dagaalyahanada Jihaadka Islaamiga ee Falastiinta ay dib isaga soo abaabulaan tan iyo bixitaankii sanadkan.